shalay waxaa qabsoomi waayey shirkii dhowaan madaxweynaha xilkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku baaqay in la isugu yimaado magaalada Garowe waxaana la isku raaci waayey madasha uu shirka ka dhacayo iyo cidda ka soo qaybgalaysa iyadoo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay soo jeediyeen magaalada Muqdisho iyo inay beesha caalamka goobjoog ka ahaato wuxuuna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku baaqay in shir uu ka dhaco isna magaalada Baydhabo oo halkaasi wada tashi la isugu yimaado haddaba waxaa caawa qadka toos ugu jira madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan Maxamuud soo dhawow marka shirkii lagu baaqay 15kii uu qabsoomi waayey Baydhabana waa la fadhiyaa marka maxaad nooga haysaa arintaas bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan idin salaamaya BBC-da iyo wariyaasha sharafta leh ku jiro awal waxaan tacsiin u dirayaa oo aniga iyo madaxweynahaba Jubbaland ma ka soo qayb galnay geerida naxdinta Maxamed Yuusuf Senator Maxamed Yuusuf Xaaji oo oday Soomaaliyeed oo geeska Afrika muddo dheer ka shaqeynay ah inta kadib waa la socotaan waa tageen gudiyadii la magacaabay shalay bay Baydhabo tageen xalay saqdhexan shirku waa u furmay ilaa maantana waliba ku jiraan guddi farsamo runtii waxay diiradda saarayaan waxa weeyaan qodobadii caqabada noqday fulintii heshiiskii September 17deedii fulintii arrimihii hor istaagay bay ku jiraan waan gartay marka adinka maxaad ka filaysaan shirkaas inay ka soo baxaan Baydhabo runtii waxaan ka filaynaa inay maxay ahayd guddida farsamada oo la sugeeyay ay diiradda saaraan saddexda arrimood ugu waaweynaa baysna ka dhigtaan sareynta sharciga hogaankana sidiisaba saddex mabda' fiican inuu qofka hogaamiyaha ah abaaro horta kow sareynta sharciga waa inuu aqbalaa Soomaaliya waa dawlad federaal ah labada heer dawladeed iyo shuruucda ay kala leeyihiin iyo awoodaha kala leeyihiin waa in ixtiraamaa laba danta shakhsiga ah oo musharaxnimadaada waa inaad ka hormarisaa tan guud inay qabsoonto saddex siyaasadda waxaa la yiraahdaa waxaad rabta ma ahana maxaa macquul ah wixii macquul ah oo maaragtay adigu rabitaankaaga inaad ku beeskarayso ma ahana maxaa macquul ah inaad wajahdaal rabaa waa tahay maxamuud rabitaanka ka hadashay sharciga waa saad sheegtay sharciga sareeya laakiin maamulkiina idinka iyo Puntland la idinku eedeeyaa inaad hor istaagantihiin doorashada marka maxay taas ku dhacday eedaasu nasbaanu Soomaalina waa ogtahay caalamkana waa ogyahay annaga waa sareynta sharciga waxaan aqbalsan lahay Soomaaliya waa dawlad federaal ah laba heer dawladeed weeye heerka state-ka ulaha oo turka qabyada oo federaalku xaq u siinayay ama state-yada dastuurada oo xaq u siinayay baan dawlad diiday awoodihii annaga u dhaaranay oo ummadiyada u matalaynay oo aan xaq u lahayn oo uu nasiinayay xeerka Soomaaliya u degsan iyo dastuurka u degsan ayaa la diiday marka war lama diidi karo xaq baan u leenahay waxaan xaq u leenahay noo daaya oo sharciga inoo ogol yahay iyo maya waxa sharciga idin ogol yahay baan qaybna idan ka siinayna qaybna idin diidaynaa weeye halka qabtay sida sheegtay sharcigaad ilaalinaysaan laakiin waxa la leeyahay arinta gado oo kaliya inay caqabad ku noqoto hanaankii doorashada Soomaaliya hal miyaad u aragteen adinka arinta gado arrin weyn weeye gado waa gobol ka tirsan goboleedka Jubbaland doortay raacay 26 xildhibaan oo heer state ayaa matasho 11 xubnood oo fulintoon aniga ugu weynaha matasho wixii hadii xeerkan u lahayn waxaan xaq u lahayn baa la diiday oo fargelin baa inta la sameeyo ciidama xawar laga keenay oo maamulada iyadoo dhanka tiinad iyo xarig iyo xabsi iskugu daray baa naasiradii Muqdisho laga kala tuuray ciidan baa marka xafiisyada la wareegay marka anaga hadii wixii aan u dhaaranay oo ilaalinaynay oo ummadda iyadaan u matalaynay baan rabnaa inay gacantayada ku soo noqdaan oo arrinta qaladka oo xooga meesha laga saaro sareynta sharciga la aqbalo marka hadii ay taa dhicin hadii macquul ma aha inaan maartay doorashada qayb ka noqono sababtoo ah waan gartay mas'uuliyad xumaan ugu dambeyntii barnaamij ay ku baaqeen mucaaradka oo jimcaha dhacaya adinka seed u aragtaan ka runtii wax kasta oo dareenka bulshada lagu muujinayo oo nabadgelyo ku dhaca waa wax wanaagsan
adduunka oo dhan bayna ka dhacdaa inay mucaaradku ku baaqaan waxaan ku talinayaa in mucaaradkana ay ka fogaadaan rabshada iyo wax gacan ka hadal keeno dowladdan inay dulqaad muujiso oo dadka isu soo baxaya iyo waxay ku dhaliilayaan intay dhegaysato ay aqbasho wixii maaragtay dadka ay rabaan baan iyadana kula talinaya oo nabadgelyada dhinac walba la ilaaliyo waad mahadsan tahay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayuu ahaa Maxamuud